laf ahaantaada qofnimadaada hagaagsanow toosnow oo hagaagsanow oo sidii ilaahay kaa rabay ku dadaal qof walbo inaga midi guri buu ka soo baxay guriyaynu ku hoyanaa magaalaynu isugu soo baxnaa ku noolnay haddii qof kastoo inaga midi uu dib isugu noqdo oo waxa diintiisa iyo dhaqankiisa ka xun uu hagaajiyo oo isa saxo oo iswanaajiyo kulligeen dad wada wanaagsan baynu noqonaynaa tin iyo cidhib kulligeen wanaagsanaanayna marka naftaada hagaaji oo toosi ilaahay adna waa ku ilaalinayaa tarantaadana alla waa ilaalinaya ilaahay markuu suuratul kahfi ka warramayay ninkii dhintay ee ubadka ka tegey ee wax adduuna iyagoo yaryar meel ugu xaseeyey ilaahay markuu ka warramayey muxuu yidhi maxaa saa loogu dhaqaaleeyey carruurta wa kaana abuuhumaa saalixan aabbahood baa nin wanaagsan ahaa ilaahay baa idinku dhaariyey bal fiiriye wa kaana abuuhumaa saalixan ilmahaa yare sabiga ah hantidaa aabbahood tabcayee ka tegey waxaa ilaahay ugu xafiday ilaa intay ka qaangaarayaan say ugu noolaadaan oo noloshooda ku maareeyaan aanay cid u shaxaadin oo cid aanay dawarsan oo aan cid loo qaaraamin aabbahood baa nin wanaagsan ahaa oo ilaahay ku xidha subxaanahu wa tacaala wanaaggii aabbahood bay ku caanamaaleen oo ilaahay hantidoodii haddii alle hantidoodii u ilaaliyey iyagana ilaahay waa ilaalinaya waa xafidaya subxaanahu wa tacaala